qaar ka mid ah madax dhaqameedka waayeelka waxgaradka iyo haldoorka iyo labeynta bulshada gobolka Sanaago maanta warbaahinta kala duwan ku leedahay beerta nabadda Xaaji Aadan Afkaloo ee magaalada Ceergaabo ayaa ka hadlay xaaladda guud ahaaneed ee nabadgelyada gobolka waxaana bulshada gobolka u soo jeediyeen inay adkaystaan nabadgelyada iyagoo dhinaca kalena madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo xukuumaddiisa ugu baaqay inay miiska wada hadallada ay kula dhamayso arrintii Korneel Caare waxaana xubnaha halkaasi ka kala hadlay hadaladoodii ka mid ah sidatan annagu baaqayagu mid siyaasiyana maaha mid qolo durayana maaha nabad baanu ka hadbaynaa nabadda in la carqaladiyo ma ogolin waxaanu isku raacsanay inaan nabadda la taaban cid nabadda faraysa iyada ku kooban tahay waxay cid u helayso waxay gacan u helaysaa midna ma jiro gobolkana saabsan go'aanaga dawladda aad baa loo aqoonsan yahay waa dawlad waxay u dhayihiin madaxweynaheedii bay leedahay anaga ku yeedna kaalay culimo iyo codkar iyo cuqaal iyo xukuumadda la isugu yimo wax ka dhamaadeen in la farafaraya ayana waa xaraan oo qoftan li u duur xulo waxaanu leenahay qoladaana nabadgelya qaadateen ducaa la idinkaga tagay Soomaaliland idin ma kala hadhin ilaahay idinku anfaco waxaanu leenahay nabadgelyadu waa rukumada ugu waaweyn nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri allahumma bil amni wal iimaan iimaanka waxa ka horeeya amni haddaan qofku tukan maayo haddaanu amni haysan oo soomi maayo oo wax sadaqaysan maayo marka amnigu waa tiirka koowaad ee nolosha aynu ku noolahay waxaanu leenahay oo dhalinyarada iyo dadka maxasta sida xun loogu sheekaynayo war dadku kala tagi maayo xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa oo u soo jeedinaynaa arrimaha gobolka inay si nabadgelyo ah gogol ballaaran inay fidiso mid dibad jooga iyo mid guda joogaba madaxweynaha waxaanu leenahay dawladnimadu waa ballaaran tahay gogol nabadeed fidi halkan waxa weeye meeshii ay ka aasantay Soomaaliland nabadgelyadeedu ilaa iyo bay gaadhay Soomaaliland oo dhan maantana halkii baan joognaayo waa ugu yeereynaa nabadgelyadii wixii maqana waxaanu leenahay sida la sheegay Korneel Caare dhibaato wax ma geysan wax dhibaato ah oo la yiri waa geystay lama sheegin dibad muuse u baxay isagana waxaanu leenahay waa inaad timaado oo dalkaagii qayb ka qaadato nabadgelyaanu ku baaqaynaa ciidanka Korneel Caarena waxaanu leenahay dawladdu wada hadal la sameeyo madaxweyne arrinta Caare waa dhinayd ergadii iyo hawsheeda laguma dhamayn hawsha waxaanu leenahay oo madaxweynaha iyo xukuumadda leenahay oo ka codsanaynaa hawsha si nabadgelyo ah in hawsha loo galo gogol nabadeed la fidiyo Ali Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.